wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xubnaha sida aadka ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u jawaabay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah ee eedeymaha culus soo jeediyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Fiqi ayaa si gaar ah uga falceliyay shirkii jaraa'id ee shalay ay wada qabteen madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed, xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo senator Cabdi Ismaaciil Samatar oo weerar culus ku qaaday madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo ka hor yimid heshiiskii uu la galay Itoobiya iyo arrimaha doorashooyinka. wasiirka ayaa waxa uu xusuusiyay in saddexdan ninba ay ka tirsan yihiin baarlamaanka isla markaana waxa ay diidan yihiin gaar ahaan arrinta doorashada ay meel mariyeen labada gole ee baarlamaanka balse ay u muuqdaan kuwa leh dana kale oo siyaasadeed dahsoon. Axmed Macalin Fiqi ayaa sidoo kale weerar jawaab celin ah siiyay xubnaha mucaaradka ah isagoo ku tilmaamay in aysan kala garanaynin waxa ay rabaan iyo waxa ay diidan yihiin waa sida hadalka u dhigay. senator Cabdi Ismaaciil Samatar oo kamid ahaa siyaasiyiinta shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay heshiiska Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Ahmed ay ku wada galeen magaalada Ankara isagoo sheegay in uu la mid yahay midkii Muuse Biixi u saxeexay. senatarka ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheynayo inuu xukunka xoog uu ku sii joogo taasina ay ku qasbayso in dowlad goboleedyada uu dagaal ku qaado dhul badanna uu iibsado waa sida hadalka uu dhigay. wuxuuna sheegay in heshiiska Muuse Biixi iyo kan Xasan Sheekh uu hadda saxeexay ay isku mid yihiin isagoo ka digay in mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed la iibsado. sidoo kale waxa uu sheegay haddii ummadda Soomaaliyeed ay aqbalaan waxa Xasan Sheekh wado inay ku haligmi doonaan dhulkana oo hadiyad u heli doonaan Abiy Ahmed iyo waliba dadka Itoobiyaanka ah. goobta uu senator Cabdi Ismaaciil Samatar hadalkan ka sheegay waxa sidoo kale ka hadlay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur kuwaas oo Xasan Sheekh Maxamuud ku dhaleelay sida uu u maareeyay xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya. waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. طيب إثيوبيا أنجا هذا واحد لقاه الله وبط لكن ما بط كلي أنا قاعد حيسه بط سجارمي قد يدنقط أنت أصلا ولا سين ولا ذين بط لقى ما هذا جرن سامة إثيوبيا أنا بط كم هذا جرن ما كان هذا جرن وين وحي كله لقى هذا جرن ما لقى الله قف كهرباء إنه كله شيء وحكاله شيء نكو وحاسكو يسين marka ka heshiisiin waxa aadaysiin waxa kala rabtiin marka bad waa naga rabi karaan mushkilad ma laha laakiin Soomaa aha wixii aan isku hayna boqolaalka sano inaan ka hadalno ka heshiino dhamayno kalsooni la soo celiyo kidib leeyahay maxaan kala faa'iidi karnaa badda Ethiopia inaysan bad lahayn waa ogna laakiin Ethiopia kaliya ma bad lahayn Afrika dawladda kala bad lahayn soo ma jiraan. هل سؤال واحد سؤال شلباب حواي دولتها بدله أو إثيوبيا حدود كلا له وين مسا أفر دولة دول محاك اللي فيها مركز أنا بدي كل جان إريتريا ما يديبته السودان ما يديبته جيبوتي ما يديبته بدأ ما كفاءة إذا سشى ما سوى قادشه ما دقي 60 ما لحظة إثيوبيان كمركز كالله يعني بدأ ما دقي 60 waxay ka hadlayaan waa qaadasho kifaayadisma ma nugu jira qof bixi kara bad ma nugu jira qof bixi kara dhul mas'uuliyad doora waa sheegto nugu ma jira ma bixi karo laakiin waxaan ka hadli karnaa al-masaalih al-mushtarak annaga iyo Itoobiyaanka maxaan kala faa'iidi karnaa waa ka hadli karnaa marka habka loo abroad gareeyay Itoobiyaanka aniga waxaan aaminsanahay waa khaldan tahay Soomaalidana culays ay ku tahay nabadna kuma iimaanayso waxaan rabaa arrinta dastuurkan ku jira wali inaan u laabto baarlamaanka waxaa la mariyay heshiis kale oo dawladda Turkiga lala soo saxiixay heshiiskaas lama arkin wasiiradu ma arkin xildhibaanadu ma arkin marka su'aashu waxa waaye heshiis aan la arkin hadii la yiraahdo waa la ansixiyo sharci ma noqonayo maxaa yeelay heshiis marka la sameeynayo laba qayb oo ka imaanaya
qodobada heshiiska iyo boroseeska oo maraayo oo lagu sharciyeynayo labaduna waa muhiim boroseeska heshiisyadu ay u maraan golaha wasiirada iyo baarlamaanka waa in la geeyaa heshiiska golaha wasiiradu ay akhriyaan u codeeyaan kadib u gudbiyaan baarlamaanka baarlamaanku akhrin koobaad akhrin labaad akhrin saddexaad oo ku sameeyo ma dhacday ma dhicin halkaas dawladda Turkiga waa dawlad runtii dalka u soo gurmatay sharaf badan kule qiimo badan loo hayo laakiin arrintan waxay abuurtay mugdi waxa kale oo hadda soo baxday markaas baarlamaanka waxa loogu sheegay golaha wasiirada heshiis amni inuu yahay oo Turkidu ay naga caawinayaan arrimaha badda arrimaha amniga ay naga caawinayaan laakiin hadda heshiiskan Itoobiya la soo galnay xagee ka soo bilowday Ankara ka soo bilowday waxay mugdi gelinaysaa heshiiska hore waxaan rabnaa marka walaalaheenna Turkiga waa mahadsan yihiin waa loo soo gurmadeen waliba xilli aniga aan joogay soo gurmadeen abaal iyo sharaf uga haynaa laakiin arrintan waa arrin khatar ah annaga iyo Itoobiyaanka darisaan nahay laakiin konflikti waqti dheer soo jira naga dhaxeeyay illa xalli waa rabnaa laakiin laysa ala xisaabina ma aha annaga dhulkeena laguma heshiinayo ee waxa lagu heshiinayaa heshiis labadeena noo siman oo aan ka wada faa'iideyno ayaa la heshiinayaa kaasan rabnaa annaga kaasan diyaaruna heshiis kasta oo mugdi gelinaya Soomaalida dhulkeedana waxay u arkayaan Soomaalidu khatar waa laga yaabaa inay aamusan yihiin inaysan hadlaynin laakiin maalinteeda inay jawaabaan annaga waxaan rabnaa علاقاتك تركيا أو في عن إنه سيف عناد وحكوف في عنا كرنا وحواي وحمقد كين كرنا الله بدر نعبأ إن لقفوا هذا وحأمل أنا وركس هذا وعدي وحن ربعنا أنا ورك دمينين صاحب بدي أنا ورك أنا وهم بيو